السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة يوتيوب كي وكحرن يودي وحاربتي ولا شينا من شرف ما شاء الله وكان تبارك سودة وهذا أصحابي واي جنك عاوة حني وذا قصداني شنكروني الشعني قادي ما شاء الله وكان تبارك هدو إلهي إدمو وحان كود هالي دونا شنكرون iyo shacnigeeda walaalihii la socday oo igu caajisay karaali ahaada xoogaa arrimo awgood jiray waa ogtihiin dhowr shilal oo badan alxamdulilah rabbilcaalamiin anigii oo ka caajisay youtube-kii oo ma aqaan dadka iskareebka walaalayaal oo ii saara share lee comment ii dhac qisadaana familiyadiina iyo qof kasta la wadaaga maasha allah wakaan tabaarak qisadii shankaroon iyo shacnigeeda shankaroon waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed magacana gabadhu bixiyay hooyo Soomaaliyeed oo ku nool wadankii dhibaatooyin iyo dhaawacyo badan ka soo gaaray haddana ku nool qurbaha maasha allah wakaan tabaarak nolol adag ilmaheeda la soo martay soo halgantay shankaroon hooyo waxay ahayd samir badan dulqaad badan ilmaheeda iyadoo caloosh ku ooynayso farxad tusin jirtay iyadoo dhibaateysan farxad tusin jirtay iyadoo jiran caafimaad tusin jirtay iyadoo caafimaad haysan oo bukaan socod ah tusin jirta caafimaad wanaag tusin jirtay farxad tusin jirtay meel kaste wax kaste baahidooda inay daboosho isku dayi jirtay baahiyaha ilaaha daboolo shankaroon waxay ahayd xoog xalaal ah ayay ilmaheeda kusoo korsatay waxay imaaday wadamadan qurbaa waxaana uu ilaahay u qadaray inay timaado wadamadan qurbaa shankaroon waxay kasoo baxday kow muqdisho shankaroon waxay kasoo tagtay haddana gobolada Soomaaliya gobolka Ismaaciil oo shankaroon haddana waxay kasoo tagtay waxay soo gashay dhulka Kenya qaxootiga ama Nairobi ama Kenya shankaroon waxay ahayd hooyo baahiyaha gaar qabto shankaroon waxay ahayd qof aad iyo aad iskugu kalsoon oo ruux kasta oo bini aadan oo u yimaado ama ay la saaxiibto aan bedeli karin go'aankeeda iyo mowqifkeedana meel ayuu ugu dheganaa shankaroon waxay ahayd hooyo naxariis badan aqli badan yar iyadoo yar ilmo yaryar dhashay maasha allah shankaroon waxay ahayd hooyo karti badan oo dhiig leh oo aqli leh oo shirqool kasta haddii loo maleego inay ka talaabsato dareemi jirtay qof kaste shankaroon waxay ahayd dadka oo aqligooda iyo maskaxdooda in ay gabadhan inay dhibaateeyaan rabaan iyada isdhiirigelin jirtay isdadnimo gelin jirtay dhihi jirtay qofkaa fiican ma leh qofkaa aqli badan ma leh qofkaa wanaagsan ma leh ilaahay wuxuu ku keeno naafooyinka Soomaaliya dadka dhibaatooyinka Soomaaliya kusoo gaaro waay shankaroon waxay ahayd qof aad u aqli badan waxaa dhacday qayb ka mid ah caawa buugga shankaroon ama qisada shankaroon sida ay qisadeeda ii soo jiidato ama maskaxdeeda aan iga sheekeynayaa hala yar ayaan kusoo qaadan doonaa shankaroon waxay ahayd hooyo maadi iyo diiniba wax yar iyada isbartay ana aqoonin dugsi isgeysay iskorisay shankaroon waxay ahayd hooyo aad iyo aad u fariidsan oo ilmaheeda iyo iyada habeenada ka mid ah xeryaha qaxootiga iyadoo joogto ayaa dab lagu soo tuuray waxay la baxday ilmaheeda bis shankaroon waxay ahayd hooyo waxyaalo badan dhegeyso maxaa qisaan wadaa maxaan igu dhacay idinka labadiina hay shankaraali ahaada walaalayaalow ilma halkan isku gabadhi yareedana dhibaysa holiday ka baxoonaa maasha allah reer UK shankaroon waxay ahayd ilmaheeda dabka markii saa loo soo tuuray waa ogtihiin xaashiye iyo jawaano waaye guryaha saasti dabka loo soo tuuray ma ogeen docdii gees dhan markuu gubtay ay waxay dareentay wax ololaaya u soo dhawaanaya riya u malaynaysa way fadhiisatay shankaroon karbuuna ifisay
waxaana gubay shankaroon rag. shankaroon waxay ahayd iyada iyo ilmaheeda ayaa isla noolaan jiray. ilmo yaryar oo badan ay haysatay maasha allah. dabkaas markuu uu galay way qeylisay, waxay aragtay in dabkii uu kusoo socdo. dhar ma ay raadin, waxba ma ay raadin. ilmihii oo kaba la-aan ah, ambalaas la wacanayo male, qaxootiga wax la wacanayo male. hooyadan aniga waxyaalo badan qisadeeda aadaa u damqadaa, aaday ii xanuujisaa. markii aan ka sheekeeyo waan ku jiradaa, wallaahi bilaahi tallaah aad iyo aadaan u xanuunsadaa. shankaroon waxay ahayd hooyo markaas banaanka u carartay, iyadii ilmaheeda qeylisay. waxaa u soo baxay maamo dariskeeda ah. markiiba maamadii gurigeeda iyadana dab la qabadsiiyey. sidii ayaa u wada qeyliyeen ee dhinaca booliiska hadday dhahaan banaanka u carareyna dadkii wax gubay ama dad tuuga inay disho ay ka baqeen. booliiska kenyana haddii oo maaragtay aad soo carartid, banaanka usoo carartid, waxaa fiican baloogaaga inaad iskaga jirtid, isaga hadduu ku imaado arag. shankaroon meelay u cararaan iyadii maamadii dabkii ay daminayaan, biyay iskaga damiyeen, way qeeliyeen, wax usoo baxay male. qof walbaba dabkaas in la geliyo, maadaama maamadii usoo baxday dabkii lagu riday oo dabkii ay la baqeen. maamadii la baqeen dadkii, maamadii koowaada usoo baxday dab la qabadsiiyey, waxay ka baqeen haddana in dab la qabadsiiyo. shankaroon waxay ahayd hooyo ilmaheeda xoogeeda xalaasha ah ku korsato dhinac kastaba. shankaroon maalintii habeenkii ilmaheeda saas looga gubay guriga iyadoo la joogto, waxay go-aan ku gaartay meel kastay aadayso in ilmaheeda wadato. maasha allahu kaan tabaarak. hadday aadayso dukaanka, shankaroon waxay kale oo dhib qabtay hadday ilmaha adeeg u dirsato waa lasoo dharbaaxa. qof weyn dharbaaxadiisa ku taalo, waxay samaysa maleh. qofkii haddii la raadiyo lama yaqaano. ilmihii maqrib mararka qaybtood safe maaha, qaxootiga waa la xadayaa ilmaha. afrikadaasaa lala gelayaa meel cunugaagii oo wax u dirsato leh kuu muuqdo ma arkaysid. marka hooyo foojigsanay ahayd, wax kastaba ka foojigsan, wax kastana ka dadaalayso, wax kastana muxuu ahaa raalli ilaahay ha ka noqdo adduun iyo aakhirabe. ilmaheeda nolosheeda iyo ilmaheedaba dhexda u xiratay. shankaroon waxay ahayd hooyo dhibaatooyin fara badan soo martay, oo sidaan oo kale ay ka mid tahay dhibaatada dabka. waa shay xun, dhibaatooyin fara badan, ilmihii oo laga dilaayo, iyadii oo lagu dhaga hadlaayo, rabbi dhibaatadu keeno lagu caynayo. shankaroon waxaa la isku dayay in markay subax kasta kala haysa la arkay in cay looga dhigo. socodkaasay soconaysa iyadii ilmaheeda, hay-adahaasi tagaysa oo la dhahaya buufis. shankaroon buufis ma soo heshay? maalin kasta qoraxa usii socotaa, buufisaa aadaa, buufisaa aaday. maxaa buufis u raadine? shankaroon waxay ahayd hooyo oo wax kastaba oo qof bini aadan ku dadaalayso. ilmaheeda iskuulka, cunug yaraa iskuulka, 2 cunug oo yaryaraa u gaareen. maalin maalmaha ka mid ah ilmihii ka daahday, waa laga soo dilay. ilmihii waa laga daqray. sumadii ilaa hadda cunugteedii way ku leedahay iyo wiilkeeda waa laga dilay. waa iska ooysay, ilaahow meeshaan iiga miciinay tiri, meelay ilmihey wax iiga bartaan oo nolol fiican ah ilaahow isii. qofka madluunka ah, shankaroon qisadeeda waxayna baraysaa qofka madluunka ah ilaahay ducadiisa ajiib waayo. weliba qofka baahiyaha gaar qabo ducadiisa cajiib waayo. run ahaantii waxa waaye waxayna baraysaa shankaroon ad adeeg, waxayna baraysaa karti, waxayna baraysaa qisadeeda kelinimada ilmaha mar kaste in maskaxda laga koriyo, in loo sheekeeyo, in hamaansada xilligan oo seexan jira raali ahad. marka asxaabe shankaroon halkaas inaan igu ekeeyaa rabaa 10 daqiiqo ka badan video everydayna updatean soo noqon doonaa insha allah tacaala biidnillahi kariim.
waxaan rajeyn doonaa in qisada shankaroon wax badan aad ka fahmi doontaan oo annaga idinkaba ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda muslimiinta mashriq iyo maqrib joogto ilaahay bogooda burcada isku mariyo kuwa colaada dhex taalo ilaahay bogooda burcada isku mariyo soomaalidana talaan siinaya ama dardaaran walaalayaalow ka daaya dadka hurgumada isku dirka ruufyaanimada warka waxba ma taro ilaahay ka baqa bini aadanka boogta intay yartahaa la gubaa boogta markaa laakiin faagfaagtiin wasaq bakteriya qaadaysaa marka ilaahay ka baqa soomaaliyey ulay duudkeeda allah naga dhigo inta dhimata allah u naxariisto inta nool caafimaad allah noo siiyo cimri dheer inta shaqaysata allah u siyaadiyo anagana kuwii caafimaad ilaahay si uu shaqaysta ha naga dhigo ilaahay waxaan ka barin inta ilmaha u koreen oo guriga u dhex joogaan gayaan kheyr qaba allah u siiyo intay gayaan haysato ilaahay ha u adkeeyo ilaahay waxaan ka barinay wax kasta oo kheyr ah jimco waaye sabtiyaa soo galooso koleyba videogan caawu nii soo galayaa ama gelin dambe ama gelin hore insha allah asxaabey hal isku duceeyo ducada qeybka ilaahay wuu aqbalaa madluunka ducadiisana wuu aqbalaa ilaahay waxaan ka barina waxaan ka hadli doonaa horta maalin kasta update noqon doonaa insha allah bismillahi kariim youtube-ka toosa ugu soo noqday everyday update noqonaa insha allahu tacaala waxaan ku dadaali doonaa inaan update noqdo idinkana waxaan ii rajeynayaa please share le comment facebook ii geeya tiktok ii geeya meel kasta ii geeya walaalayaalow shankaroon qisada si toosaan u bilaabay si toosaan rabaa inaan u wado bilahan xoogaa fara badan waayo qisadii marba xoogaa nii soo qaaday si toosaan rabaa shankaroon in muddana wanaagga hooyadaas ay lahayd iyo sharafteedana aan ku socdo 10 daqiiqan inay ka badato marabin hadda 13 daqiiqa kusii socotaa waa 12 iyo 11 minute bye bye share like comment iyo update every day insha Allah bismillahi kariim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.